wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Mudane Maxamed Xaashi Dhowr ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda abaalmarinta ardaydii gashay kaalinta koowaad ee imtixaanka dugsiga dhexe iyo ardaydii gashay kaalinta tobnaad ee imtixaanka oo lagu qabtay dugsiga hoose dhexe sare ee Sheekh Yuusuf. Munaasabadan oo lagu abaalmarinayay ardaydii kaalimaha sare gashay iyo iskuulka Sheekh Yuusuf oo sanadkii labaad si xiriir ah u galay kaalinta koowaad ee imtixaanka dugsiga dhexe oo ay wasaaradda waxbarashada Galmudug qaaday ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug, saraakiil ciidan bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Hurshe. Mubaarak Macalin Xasan Nuur oo ah maamulaha iskuulka Sheekh Yuusuf ayaa ugu horeyn hadal ka furay isagoo soo dhaweeyay wufuudda kala duwan. waxay daaran tahay munaasabadan sida hore loo sheegay abaalmarinta ardaydii gashay kaalimaha tobanka ugu horeeya ee imtixaankii centralized-ka Galmudug oo ay ugu horeyso ardayda gashay kaalinta koowaad Aisha Sharaf Abdul Sheekh Yuusuf iyo ardayda gashay kaalinta tobanaad Aisha Khalid si gaara iyo si guudba waxaan leenahay hambalyo saraf ay noo tahay anagoo dhan inaan aad noo gashaan kaalimaha top 10ka waliba mid ugu horeysa iyo qaybo kale oo kamid ah. Daraasada Sheekh Yuusuf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ayaa bogaadiyay dadaalka ardayda iskuulka Sheekh Yuusuf iyagoo wafdiga wasiirkana soo dhaweeyay. Waxaa la rabaa cid kasta oo wax baranaysa ayadoo diinta islaamka gacanta midig ka dhiganaysa inay sidii hadda dadkan kaalinta galay kulli ardadu ay u dadaashaan ku baan ayagoo dhan baan ugu dardaarmahayaa oo ay dadaal xoog la sameeyaan. dowladda Galmudug oo wasiirku nagala joogo iyo dowladda federaalka intabana waxaan leeyahay haddii iskuulku meel fiican soo gaaray adinkuna aad ka qayb qaadateen maanta waxaan idinka rabnaa inaad dhammaystirtiin wax kasta oo baahiya oo iskuulkan ka jira maadaama dadaal la soo sameeyay adinkuna maanta mas'uuliyadii aad haysaan adinkana intaas aanu idinkana filaynaa. wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Galmudug Mahad Xaydare iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo kheyraadka badda wasiir Cabdaahir Xuseen oo munaasabada ka hadlay ayaa u mahad celiyay maamulka iskuulka iyo ardaydii magaca magaalada u soo hooyay iyagoo wasiirkana uga mahad celiyay sidoo uu taageeray iskuulka Sheekh Yuusuf. maanta waxaa nala jooga wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo saaxiib dhow la ah reer Hurshe saaxiib dhow la ah iskuulka Sheekh Yuusuf kaalintii hore markaan galnay garab istaag noo muujiyay na dhiiri galiyay maxaa la yiraahdaa taageeradii ugu muhiimsanayd oo markaa iskuulku uu sanaysan oo ahayd taageero macallimiin iyo taageerada ardada quudinta iyo maaragtay programka school feeding-ka naga taageeray. wasiir waa kaaga mahad celinaynaa taas tilaabadii aad noo qaaday iyo mataqaanaa incentive-kii macallimiinta iyo ardada la siiyeyna abaalkeedii waa gudna oo anaga kaalinta koobaad galnay. runtii waxa weeye juhdi badan oo la soo maray maanta waxay maraysaa meeshii aan higsanaynay insha Allah taala. waxaan leenahay dhalinyarada waxbarashada ee kilaasyada u fadhiyo halka quruxda badan leh waxa weeye wajiyadina badan waalidkiina waa idinku farxay dadka adinka mas'uuliyiinta idinku haya xaqana waa ku faraxsan yihiin dadka dariskana waxaad ka tihiin memberka la iska fiiriyo picture-ka maanta xagga aad u soo jeediseen adinka koos gareeyay haddaan waalidka iyo dhalinyarada iyo macallimiinta iyo bahda waxbarashada oo dhan iyo mas'uuliyiinta isa ka wada shaqeynayeen heerkan lama gaarin waa dad isku xiran waxaan leeyahay guuleysta. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Mudane Maxamed Xaashi Dhowr ayaa u mahad celiyay maamulka iyo ardayda iskuulka Sheekh Yuusuf isagoo abaalmarino guddoonsiiyay labadii arday ee kaalimaha imtixaanka gashay. runtii sharaf ayay inoo tahay inaan halkan idinkula wadaagno farxad oo aan dhiirigelintiina aan u soo galno safar runtii aan howlo badan oo mashquul aan ku jirnay laakiin waxaa nooga qiimo badnaatay inaan reer Hurshe iyo labadan gabdhoodba aan farxadda la wadaagno. waxaad horay aad hormuud ugu haydeen cilmiga diiniga ah haddana waxaad hormuud u tihiin waxbarashada Galmudug runtii aad ayaad u mahadsan tihiin. waxaad sharaf u soo jiideen deegaankan waxaad sharaf u soo jiideen waalidiintiin waxaad sharaf u soo jiideen iskuulkan Sheekh Yuusuf. waxaan rajaynayaa sanad dugsiyeedka soo socdana qaar kale oo idin kamid ah inay dugsiga hoose dhexe ay kaalimo ka galaan waliba kaalimaha koowaad ay galaan dugsiga sarena reer Hurshe ayaan ka fiirinaynaa. labada Caaisho maanta waxaan la wadaagaynaa farxad
markii laga soo tago agabkaas oo runtii taariikhdooda iyo inta ayba nool yihiin ba ay historygooda sharaf balmiiska u saaran ay noqon doonto haddana runtii xildhibaanad canab oo ka mid ah baarlamaanka galmudug ayaa abaalmarin lacageed soo gaarsiisay Caaisha Sharaf Cabdiweli gabadha kalena wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa hadiyad lacageed soo gaarsiisay qadarkeedana waxaan ugu dhiibnay maamulaha iskuulka Xuseen Cali Xuseen warbaahinta qaranka magaalada Huurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud